siyaasiga Cabdiraxmaan Raabi oo kamid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee Jubbaland ayaa eedeymo culus u jeediyay maamulka Axmed Madoobe ee fadhigiisu yahay magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaadhka ee maamulka Jubbaland isagoo ku eedeeyay in Axmed Madoobe uu ka shaqeynayo kicin bulsho isku dirka beelaha Soomaaliyeed iyo sumcadilka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Cabdiraxmaan Raabi ayaa sheegay in dhacdadii naxdinta badnayd ee lagu xasuuqay shacabka Soomaaliyeed ka dhacday Kamjiroon ee duleedka magaalada Kismaayo ay sababteeda lahaayeen maamulka Jubbaland isagoo sheegay in arrintaasi ay doonayaan inay ku jeediyaan beel kamid ah beelaha Jubbaland dhinaca kalena isku diraan dadka Soomaaliyeed ee halkaasi wada degan. Cabdiraxmaan Raabi oo qoraal baahiye ayaa ku yiri sida tan: maamulkii hore ee Jubbaland ee waqtigiisu dhamaaday wuxuu ku howlan yahay isku dirka iyo iska horkeenka beelaha degan deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo. Dhacdadii foosha xumeyd ee dadka reemiyiga lagu xasuuqay deegaanka Kamjiroon ayuu maamulku doonayaa in uu u yeelo waji qabiil isagoo sheegay in ciidamada darab ee howlgalka fuliyay ay u badnaayeen hal beel oo kaliya. arrintaasi waxay meel ka dhac iyo sumcad xumo ku tahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayuu yiri Cabdiraxmaan Raabi. waxa uu intaasi ku daray: waxaan uga digayaa beelaha Soomaaliyeed ee Jubbaland gaar ahaan kuwa deegaanka inay ka fogaadaan dhagarta iyo shirqoolada uu maleegahay maamulka sharci darrada ku jooga magaalada Kismaayo ee Jubbaland kaas oo waqti dheeraysi ka raadinaya abuurista dagaal sokeeye oo u dhaxeeya beelaha Soomaaliyeed. arrintan uu ka hadlayo siyaasiga Cabdiraxmaan Raabi oo kamid ahaa musharaxiintii madaxtinimo ee maamulka Jubbaland haddana ku sugan magaalada Muqdisho ayaa imaanaysa xilli ciidamada Axmed Madoobe lagu eedeeyay inay dad shacab ku xasuuqeen duleedka magaalada Kismaayo iyadoo ilaa iyo hadda maamulka magaalada Kismaayo ee Axmed Madoobe uu hogaamiyay aysan ka hadal dhacdadaasi dhinaca kalena aysan ka tacsiyeen dhibaatadii soo gaadhay shacabka Soomaaliyeed. iyadoo sidoo kale la soo warinayo in dad fara badan oo kamid odayaasha dhaqanka, siyaasiyiinta iyo ururada bulshada ee kala duwan ee dadka deegaankaasi oo ka cabday dhacdadaasi dadka lagu xasuuqay lagu xidhxidhay magaalada Kismaayo dhinaca kalena shacab mudaharaadayay halkaasi loogu geystay dhibaatooyin aad u xoogan. ma aha markii ugu horeysay ee ciidamada Jubbaland ay dhibaato ka geystaan deegaanada ku teedsan magaalada Kismaayo, balse maamulka Axmed Madoobe ayaa u wajaho qaab ka duwan qaabka ay u wajahaan maamulada kala duwan ee dalka. siyaasiga Cabdiraxmaan Raabi oo maalmihii u dambeeyay ka hadlayay dhacdada ka dhacday duleedka magaalada Kismaayo ee deegaanka Kamjiroon ayaa sheegay in Axmed Madoobe uu doonayo in muddo dheeraysi uu ka raadiyo dhibaatada shacabka Soomaaliyeed.